cashar aad u xiiso badan. casharkeena waxa uu ku saabsan yahay daily used sentence. daily used sentence yacni jumlado English oo si joogto ah loo isticmaalo. yacni marka Englishka aan ka hadlayno ama aan baranayno waa in aan isku xiri karno jumlado si aan u ogaano aqoonteena Englishka meesha ay gaarsiisan tahay. soo maanta casharkan ayaan qaadan doonaa. ila socda. shall we go ma baxnaa. shall we go ma baxnaa. jumlada xigta shall I open the door. shall I open the door ma furaa albaabka. shall I open the door ma furaa albaabka. jumlada xigta where do you there. where do you there maxaad ka qabataa halkaa. where do you there maxaad ka qabataa halkaa. jumlada xigta where do you work. where do you work xageed ka shaqaysaa. where do you work xagee baad ka shaqaysaa ama xagee ka shaqaysaa. jumlada xigta who's this car. who's this car yaa leh gaarigan. afwan whom is he talking to. whom is he talking to yuu la hadlayaa. whom is he talking to yuu la hadlayaa. jumlada xigta whom are playing with. whom are playing with whom are playing with yaad la ciyaaraysaa. jumlada xigta how lucky you are. how lucky you are alla nasiib badnida. yacni how lucky you are alla nasiib badnida. jumlada xigta we are in hard time. we are in hard time waqtigu waa nagu adag yahay. we are in hard time waqtigu waa uu nagu adag yahay ama waqtigu waa nagu adag yahay. jumlada xigta I won't break my fast. I won't break my fast anigu ma jibinayo sonkeyga. I won't break my fast anigu ma jibinayo sonkeyga. jumlada xigta I don't like ungrateful person. I don't like ungrateful person ma jecli qof aan abaal lahayn. I don't like ungrateful person ma jecli qof aan abaal lahayn. jumlada xigta how do you know. how did you know. how did you know sideed ku garatay. how did you know sideed ku garatay. jumlada xigta Ahmad is a courteous person. Ahmad is a courteous person Ahmad waa qof af macaan ama qof aftahan ah. Ahmad is a courteous person Ahmad waa qof af macaan ama aftahan ah. jumlada xigta believe me irumayso. believe me irumayso. jumlada xigta do you understand. do you understand miyaad fahmaysaa. do you understand miyaad fahmaysaa. jumlada xigta can you speak slowly. can you speak slowly tartiib ma u hadli kartaa. can you speak slowly tartiib ma u hadli kartaa. jumlada xigta call me tomorrow. call me tomorrow beri soo wax. call me tomorrow beri soo wax qof yacni kula soo hadlay marka ay jecleedahay call me tomorrow aniga maanta mashquulsanahay. today I'm busy please call me tomorrow yacni beri soo wax qofku waa dhihi kartaa. soo jumlada xigta Marian is a cheerful girl. Marian is a cheerful girl Marian waa gabar bashaash ah. Marian is a cheerful girl Marian waa gabar bashaash ah. jumlada xigta what time do you get up. what time do you get up goormaad toostaa. what time do you get up goormaad toostaa. jumlada xigta how did you do this. how did you do this sideed waxaan u samaysay. how did you do this sideed waxaan u samaysay. so intaas
ayaan ku sameynaa jumlooyinka ama jumladaha aan ugu talagalnay qof walba oo janaalkan ku xiran inuu ka faa'iideysto. hadda waa qaybtii koowaad weeye, qaybihii kale waa soo gelin doonaa hadduu alla idmo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.